وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan ku sugannahay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda hawlaha guddulka iyo guryeynta oo inagu helinayeen agaasimo waaxidada wasaaradda hawlaha guud injineerada iyo madax qaybeedada wasaaradda hawlaha guud oo aan ku soo mareynay safar saddexda gobol ee Saaxil iyo Togdheer iyo Sanaag ayuu ka mid ahaa safarkaygii aan maanta ku nimaadno magaalada Ceerigaabo. hawlahan u soconay waa hawlaha wasaaraddu qaranka u hayso inaan dirdirgelino kormeerno wixii qabiyo ah iyo wixii kormeera iyo wixii hirgelin sanadkan loogu talagalay in hirgeliyo in la soo kormeero. saddex qodob baa ugu muhiimsanaa in la kormeero danta guud dhul iyo dhismada ee wasaaraddu qaranka mas'uulka uga tahay in la dirdirgeliyo kira ururintii guryaha dawladda in la kormeero mashaariicaha dhismaha ee dawladdu wado ee laga hirgelinayo miisaaniyadda qaranka. alxamdulillah safarka intii aanu ku soo jirnay si fiican oo wanaag iyo khayr la ayuu noogu soo dhamaaday. maanta waxaan joognaa gaar ahaan airportkii magaalada Ceerigaabo. halkan aynu ku sugannahayna waa terminaalkii cusbaa loo dhisayay airportka. waa laba xarumood waa qaybtii terminaalka ahayd oo arrivalkii iyo departure-kiiba leh iyo dibdimiskii oo isaguna in yar ka durugsan. waxaa garabkayga taagan shirkaddii ku guuleysatay dhismahan inay dhisto. kormeerkayagu inahaasu daarnaa terminaalkan aynu joogno maanta waxaa laga hirgeliyey kharashka ku baxaya miisaaniyadda qaranka. shirkadda dhisaysa waxaan kula dardaarmaynaa anaguna ku goobjoog ahaanaynaa inay tayada iyo requirements ama shuruudihii loo dhigay sidii loogu talagalay ay u fuliso. khayrna waan rajeynayaa iyo wanaag insha Allah ilaahay sida ugu talagalay ay u dhameystiraan. guud ahaan gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo gaar ahaan 2019 waxa laga sameeyay master plan magaalada 1.5 kilometer dhismaheeda wixii ka xiga dhinac walba ayaa loogu talagalay. wadooyinka waxa loo sameeyay wadooyinka waaweyn ee 30 mitir iyo 40 iyo 24 iyo 18 waxa uu harsanaa wadooyinka yaryar ee local roadska loo yaqaan blockada isku xidha. isagana kormeer baan ugu nimi in loo ilaaliyo naqshada guud ee magaalada. tacab iyo kharash iyo juhdi badan baa ku baxay sidii loo daryeeli lahaa loo ilaalin lahaa wadooyinkaas inaan xirmin ayaa iyaguna safarkayga qayb ka ahaa. waan insha Allah kormeerina soo eegina ka warhaynayna wixii ka qalloocmay wixii la sixi karayna waan saxaynaa. guud ahaan hawlwadeennada wasaaradda siduwaha gobolka ee ugu horeeyo waan u mahad celinayaa sida qaranka ay ugu adeegayaan. shirkadaha dhismaha ee fulinaya isaguna dhismahan ee wacalin nagala joogo isagana waxaan dardaarmayaa insha Allah in sida loogu talagalay dhismaha waajibkiisa uga soo baxo ee qaran ahaan wixii naga saaran mas'uuliyadna si hagar la'aan ayaan uga soo baxaynaa. khayr iyo wanaag baan guud ahaan rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.